بسم الله الرحمن الرحيم أكو سو دوبنا كورسديني كمبيوتر ابلكيشن برشادة MS Word 2010 موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay adding and deleting rows and columns to a table. Table-ka sidee loogu daraa ama looga delete gareeyaa rows iyo column maadaama dhan table-ka wuxuu ka kooban yahay rows iyo column. So haddaan rabo row cusub inaan ku daro ama column cusub see ugu daraa haddii aan rabo inaan iska delete see u delete. Okay, waxaan soo abuuranaynaa table-keeni aan naqaano si loo abuuro qaabka rabto soo abuuro table-kana soo abuuranayna. So table-ka waa kana ku samaysan yahay waxaan iskaga qoranaynaa waxyaaba qaar sida ku garano marka row-ga soo gelinay iyo waxa soo gelinay soo ku qorano salahan chemistry biology. Okay. Marka salahan saado u garna roog iyo xasuuq soo hado xarabna marka inaan soo gelino waxa ka bilaabay inaan soo gelitaanka adding inaan soo gelino column ama row. Okay, table-ka anagoo dhex joogno yaa waxa dooran doonaa tabkaas loo yaqaan layout. So tabkaas layout-ka wuu dhumi doonaa hadda table-ka dhex joogno. So hadda falaarteen waxay joogtaa meel kale oo wax iskaga qoran karno oo table-ka banaankiisa. So waxa qasab ah marka layout-ka wax ka bedelaysid inaad table-ka dhex joogtid. Table-ka marka dhex joogto kadib waxa imaanaya layout. So tabkaas layout-ka tagayna kadib waxa tagayna group-kan loo yaqaan rows iyo columns. So group-kan laba loo qaybinaa marka aan dhahay ilaa laba loo qaybinaa ama waxba ka dileeday waxa loo yaqaanaa table-kan ama waxba soo gelinay. So marka soo gelinayso laba loo sii qaybinaa labadan oo insert above iyo insert below ku qoran tahay it means waa row meesha aad joogtid row ka sareeya ma soo gelinaysaa iyo row ka hooseeya ma soo gelinaysaa. Labadan waxay noqonaysaa insert left iyo right waa column. So waxaan kan waa column kan waa column kan waa column. Kan marka aanu joogo haddaan rabo column inaan soo geliyo waxa la weydiin doonaa column-ka oo dhanka bidix ma soo gelinaysaa ma column-ka dhanka bidix soo gelinaysaa. Si la mid ah rows-ka ma qaybta ka sareysa soo gelinaysaa ma qaybta soo gelinaysaa. Salaad hadda anaga inta joogna falaartina halkaan ay joogtaa waxaan rabnaa inaan soo gelino kan waxa loo yaqaanaa row sooma kanna waa row kale. This is another row, this is another row. So meeqa row kooban yahay 1 2 3 4 5 row kooban yahay. So row-gan anoo joogo falaartii joogto waxaan rabaa row ka sareeya inaan ku soo daro salahan aan wax kale ku qoro. Waxaan soo xasuustay inaan iga dhimayaan row kale oo ka sareeya. So waxaan leeyahay marka insert row above. Tiinis maxaa row-gan ugu sareeyay row kale soo gal. So dhow row-gaas mawduuc kale waxa iska qoran karaa. Okay, haddii aan rabo marka hadda kan anoo joogo row ka hooseeya haddaan rabo inaan soo geliyo insert below aan leeyahay mid kale kana joogay mid ka hooseeya soo gelina symbol intaas rows. Columns ka diyaar inaan soo geliyo marka waxa isticmaalaa left iyo right isticmaalaa. Hadda kan anoo joogo salaan kan anoo joogo column-kan hadda wax ku qoran doona wax ku dhex jiro no number wax la ku dhex jiro. Okay, column-ka anoo joogo waxa rabaa dhanka left-ga column-ka soo geliyo. So left-ga taawna dhanka left-ga dhanka bidix soo geliyo another row. So kan anoo joogo iyo kan labadan laba column u dhexeeya rabaa inaan soo geliyo column-kana falaart saarna anoo layout-kay joogo waxa leeyahay insert right. So labada dhow waxa soo geli doona laba column u dhexeeyo labadan column oo waxba ku qorneen. Okay, waa arkaysaa column-kan ku aqoonsanayna number column-kan name ku aqoonsanayna. So column-ka waxa column bannaan iyo halkan soo geli. Sidaas loo sameeyaa columns iyo rows marka rabo in lagu soo daro. So waxa kale oo la isticmaali karaa in falaarta aad geesid dheer row inaan ku soo daro in falaarta aad geesid maxaa loo yaqaanaa column-ka ama row-ga aad rabtid inaad ku soo dartid marka falaarta calaamada saan isku bedesho aad aad click marka highlight-kaas yar oo saarmo aad aad enter maxaa ku soo daraysaa another row soo dari kartaa. Okay, haddii aad rabo inaad dileedo marka haddii aad rabo row inaad dileedo column inaad dileedo isla meeshaan la isticmaalaya. column-kana rabaa inaad dileedo waxaan tagayaa delete wuxuu leeyahay maxaa dileedaysaa ma cell dileedaas cell wax loo yaqaan halkaan shay bisa cell loo yaqaan kan waa cell kan waa cell kan waa cell. So maxaa dileedaysaa ma cell dileedaysaa ma column dhan aad dileedaysaa ma row aad dileedaysaa ma table dhan aad dileedaysaa.
soo hadda waxaan leeyahay column haddii leedahay ismeans column-ka dhan haddii leedahay column-ka oo number iyo bilaabana iyo igu soo hormaray haddii aan rabo inaad dileedo row tusaale ahaan rowgaan halka rabaa inaad dileedo hadda numberkan saa ku garano 3 row ka sareysa waa in hadda 2 row ay ka sareysaa so waxaan dileedaa rowgaan dileedaa ismeans 2 row ka sareysa mid kale dileedaa numberkeena ugu sareeya okay sidaasaa loo dileedaa loona soo geliyaa columns iyo row so optionkaas wuxuu ahaa adoo jooga maxaa la yihahdaa tableka inaad tagtid layout-ka kadibna aad ka dooratid rows iyo columns inaad kusoo degtid option kalaa jira marka oo ah in rowga aad rabtid ama column-ka aad rabtid inaad wax kusoo dartid markaad joogtid aad dhahdid right click kadibna ay isticmaasha calaamada la yaqaano insert oo ah insert column to the left right haddii aan rabo column inaan soo geliyo column-ka hadda aad joogo leftigiisa soo geli right-kiisa soo geli haddii aan rabo inaan soo geliyo maxaa la yihahdaa rows above tusaale ahaan kan hadda rowgaan oo kala joogaa insert waxaa soo gelinaa row ka sarreeya row ka sarreeya soo gelaa kan oo kala joogaa waxaa soo gelinaa ama column-kaana joogaa waxaa soo gelinaa column ka xigo dhanka leftiga waa kana column-ka so labada dhinac isticmaali kartaa marka inaad isla adoo meeshaa joogo right keligaa dhahdid insertiga isticmaashid iyo inaad layout ka tagtid insertiga soo isticmaashid si lamida deletionka inaad right click dhahdid delete cell labadoo samayn kartaa halkaas aynu ogayahay si loo dileedaa waxna loogu daraa column iyo row table. Asalaamu calaykum waraxmatullahi